kooxda fanka ee xidigaha geeska ee fadhigoodu yahay magaalada Hargeysa ayaa maanta mar kale gudoomiyaha kooxda waxay u doorteen abwaankooda Xasan Saleebaan Dhuxul Laab Saalax kadib kulan ay isugu yimaadeen isla kulankaas ay maanta yeesheen waxay xubinnimadii kooxda ay kaga saareen fanaaniin ay ku jiraan Yurub Geeyo iyo Nimcaan Xillaac mana aanay cadeen sababta ay kooxda uga saareen fanaaniintaas waxaase xusid mudan in fanaanada Yurub Geeyo iminka ku sugan tahay magaalada Muqdisho halka Nimcaan uu muddooyinkanba halkaasi joogay haddaba waxa arintaasi u sheegay warbaahinta Cabdirasaaq Xaamud Jeylaani oo kooxda u hadlay iyadoo aan gaarin muddadii xildhibaankiisa xubintii kale ee shaqada wadi karaysay oo Xasan Saleebaan Dhuxul gudoomiyihiisa ka horeeyay ayaa si culaysku u yaraado xilkana cid qaada oo gudan karta loogu helo halkaasi labadan nin xilka u kala wareejinay inta kale ma xil gudasho laa ee wadayaashii kooxda waxa jira xubno ayaguna waayay xubinnimadii kooxda iyadoo sabab aan ta kooxda ahayn oo jirto oo loo aaneynaya aanay jirin laakiin isbedelada kooxda ku dhacay ka soo horjeedkeeda iyo afkaarta lagu kala duwan yahay waxa xubinnimadii ku waayay gabadh Hodan Cabdiraxmaan Leydhaa fanaanadii Yurub iyo Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan iyo nin Yuusuf Leydhaa Yuusufaanad waxa kale oo uu sheegay in kooxda lagu soo diray fanaaniin kale lix xubnood nin Leydhaa Axmed Aarshe oo fanaana inan barwaaqo Leydhaahdo fanaanada barwaaqo qalanjo inan asma Leydhaahdo inan Ugbaad Leydhaayo fanaanada iyo nin Maxamed Yara Leydhaa kooxduna Marshaalka u taqaano